السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابت سود هذا ودقالكي أكتوبر قيبتي السدحات والله يا ويكسنجر قرار كاس حاكون اللي انت لا وضع وقاضو بل زواحا نصوصتا هذا الكيوجر كسنجر ووريابله هدي كاسي وياي مرة بدن ويحي عند البرني وانا مرحلة لدكو أسادات وحينا هرسدينا نسويدينو موقعدنا يا قوان كاس سدب ووافقي سادات قوانكي أمريكا وعاونا قوان سدينو أصدر لتليسي عانكاها حافظ إسماعيل سيولا كل مدقيسي هنري كسنجر waxaan shaki ku jira ayaa in diblomaasi Kissinger kaligiis inuu awoodo saamaynta Israa'iiliyiinta 7 bilood kadib Xaafid Ismaaciil waxa uu gaaray Ameerika waxa uu u jeestay meel sir ah ay ku balameen inay ku kulmaan isaga iyo Kissinger oo ku taala magaalada New York taasoo ku sii sugayay Henry Kissinger ما مليسن كلانكان سيدا أو أيتاي أيين أمريكيينتو كوا قرار كسو ساري كنا ديردي إن لو وضا كلمو تنوى مركي وغوريسي إسكاشي يشان إساقو دبلوماسيغا مصر كيمي وأرين مهم كلا حاجونيو وحانو ملاينيا إنو دريمي فان وايو نين عربا أي هذا الكيسا سيدا باوقاتي هذا الكايو ما أو أوران بلسي وحا ودوني إني هذا الكيسا دبوقاتان وهو قامي هنري كيسنجر waxa ay labada diblomaasi la taliyaashoodii hoosta ka soo xirteen qolkii ay ku ballameen waxayna guda galeen qorshaynta si Masar iyo Israa'iil nabad looga dhexdhalin lahaa waxaan doonaynaa inaan dib uga guranno Siinaa waan ogahay arrinkaas balse muqaabilka waxaan idinka helanaa waxaan isku bedelanaa dawlad nabadeed annagoo ahayn awal dawlad dagaal waa maxay haddaba qorshaha dejiseen waa inaan qorshaha wejigiisa koowaad dhammaystirnaa Sebtembar taasoo macnaheedu tahay in waqti hore ay qabsanayso Israa'iil dhulkeenna waxay bilaabanaysaa doorashadu dhamaadka Oktoobar intaa kadibna Goldamaiir taa ku qaadi mayso qancintooda waa idinka xaqiina annaguna arrinkaa waxaan sugaynay muddo 6 sano ah laba maalmood oo qorshe la dejinayay waa ay ismaac salaameeyeen labada diblomaasi iyagoo ku madalayay in bisha May mar labaad la kulmo si lama filaana tegidii Xaafid Ismaaciil uu Masar dib ugu laabtay waxa aqalka cad soo gaaray Goldamaiir si ay uga wada hadlaan barnaamijka ay Ameerika ku tabarucayso ciidanka Israa'iil halka waxa fursad uga muuqatay si uu u sheego Goldamaiir waxa ay ku wada heshiiyeen isaga iyo la taliyaha Saadaad waxa laga yaabaa in mowqifka Masar uu isbedelo haddaad fulisaan waxaan isweydaarsanay aniga iyo Xaafid Ismaaciil ma doonayno inaan jihadaas u dhaqaaqno iyadoo dhibto ay tahay in carabtu aysan doonayn ee ay rabaan inay banaanka noo tuuraan Goldamaiir go'aamadeeda siyaasadda ku dhisnaa ayaa ahaa mid ay Israa'iil isku haleynaysay waxayse waafaqday in Kissinger uu xiriirka la sii wado Xaafid Ismaaciil balse waxay go'aansatay inta ka horeysa dhamaadka Oktoobar oo doorashada Mareykanka ah aysan wax talaabo ah qaaday dhinaca kale Xaafid Ismaaciil waxa halbacaad lagu lisay ka noqday qorshihii uu labada maalmood dhisayay isagoo ogaa in Kissinger ay ku adkaan doonto inuu ku qanciyo Mareykanka inay dhaqaaq sameeyaan waxa uu Saadaad jiray doorashada ka hor waxaan oranayaa in Mareykanku ay Masar iyo Carabtu ka doonayaan inay wax badan ka tanaasulaan tani waa dambaalka waxa ay doonayaan tanaasul cusub waa maxay tanaasulku aan sameeyo waxay xoog ku haystaan qayb dhulkeena ka mid ah aniguna Saadaad ayaan ah waxaan ogolaaday heshiis ah inaan Siinaa dib uga gurto waxaan kaloo sameeyaa intaa ka badan waqtiga kadib kalsoonidii ay Masar ugu qabtay ayaa baabaaday annagoo ahayn kuwa dib u dhiga heshiiska arrinka waa ay ku saxnaayeen Masar annagu maanan ahayn dad warkoodu cad yahay dhowr usbuuc kadib 9 Abriil 73 waxa uu Saadaad ka soo muuqday jariirada Newsweek ee Mareykanka waqtigaas waxa uu diyaariyay madaxweynuhu qorshe labaad oo ah in Ameerika aysan dhaqaaqayn iyadoo aan dhacla argagax hal samayn mooyaane waa inay noqotaa dhacdadaas mid si dhab ah u fusha si talaabooyinka habboon loo qaado maalinna Saadaad sidaan oo kale warkiisa ulama badheedhin haddii aysan dawlad soo dhexgelin Israa'iil dagaalku joogsan maayo
aqalka cad haddaan u laabano hadalka saadaad si dhaba uma aysan qaadan. waxaan u malaynayaa khaladka uu galay kisinjir uu yahay inuu carabta dhabarka ka togtay si wadar ah, si khaasana Masar inay Maraykanku u haysatay dowladaha carabta wixii la faro kuwa fuliya hanjabaado iyo go'aamo haba soo saaraane. sidoo kale iyadoo dowladaha carabtu qaarkood ay taageero ka helayeen Ruushka, warka kooban ayaa ah ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba inaysan Israa'iil wax hanjabaado ku hayn. Ameerika waxay noo eegaysay sidii inaan joogno sanadkii 67 waqtigaas waxaa naloo jabiyey jabin midda ugu xun. iyaga waxaa maskaxdooda ku qufulan odhaahdii ahayd taariikhdu inay soo celiso at-taariikhu yacuudu nafsah. sidaas ma doonayaan inay ina soo dhex galaan. waxa uu ogsoon yahay saadaad inuu ku fashilmi doono inuu dhacdadii uu qorsheeyey fuliyo, taasoo uu kaga hadlay jariiradda Yusri. waxa uu saadaad u baahan yahay saaxiib uu garabsado si uu u duulo Israa'iil. saaxiibkaas waa inuusan noqon ilaa nin Suuriya mooye, kaasna waa Xaafid Asad. 67 xaafid waxa uu ahaa wasiirka difaaca, waxa uuna ku tilmaamay weerarkii Juulaan lagu qabsaday khasaaro dulinimo ah. maanta magaalada Iskandariya ee Masar waxaa xilfo wadaag ku samaysanaya 2 hogaamiye oo Carab ah, balse saadaad waxa uu ka digtoonaaday inuusan jaalkiisaan cusub uu qorshayaashiisa dhan la wadaagin. waxa uu fahnay ka Masriyiin ahaan qorshaha Suuriya mid hagaagsan waxay ahayd qorshe fudud oo ah in la soo ceshto dhulkii Juulaan dhammaantiis. jihaadii laga eego maanan u diyaarsanayn wakhtigaas. waxaan ugu sharaxay Suuriya qaab kaafi ah oo ah xadka ay ciidamada Masar ugu quusayaan si ay u gaaraan dhulka Siinaa. saadaad saaxiibkiis uma uu sheegin inuu qorshaynayo inuu kanaalka Suways dhinaciisa kale uu kaga soo duulo si uu Israa'iil ugu khasbo inay wada hadal gasho. si Asad uu qanciyo inuu diyaar u yahay ku duulitaanka Israa'iil, wuxuu amray Generaal Shaadani inuu dejiyo khidada loogu duulayo Siinaa oo dhan. waxa uu Shaadani xusuus qorkiisa ku qoray waxa ay saamaysay qorshihii saadaad, balse askari ahaan amarkii waan fuliyey, sirtiina waan xafiday. waqtigii ay Masar iyo Suuriya isku diyaarinayeen dagaal waxa ay ahayd Golda-Meir mid u dabaaldegaysa 25 guuradii ka soo wareegtay aasaaska Israa'iil. iyada xaggeeda waa waqtiga ugu habboon ee ay soo bandhigi karto awoodda dowladda Cibraaniga iyo awoodda ciidankeeda, iyadoo shacabkeedu ay ahaayeen kuwa ku kalsoon iyada. waxaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay bandhigaas Isxaaq Buruud. waxa uu ahaa 25 jir dhakhtar ah. waxa uu Quds u yimid si uu uga qayb galo bandhiga. qaybtan halkaa inoo joogta asxaabta, waa inaayo qaybta afraad. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.